ee Madogo Secondary School ayaa la xiray kadib markii xalay abbaara 2 saac oo habeenimo uu dabka kacay. Iskuulkani oo ay dhigtaan gabdho iyo wiilal ayaa wuxuu yahay boarding ay ku xareysan yihiin. Dabkani ayaa geystay khasaaro gabi ahaan ay ku gubteen agabkii carruurta ay ku jiifanayeen. Waxaa ka hadlay goobta David Mutua oo ah madaxa tacliinta, sidoo kale waxaana ka hadlay dhamastaha iskuulkaasi Robert Maina, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa. The board will sit down and decide on the way forward for the school, but for the time being guddiga ayaa fadhiisani doona waxayna go'aan ka gaari doonaan mustaqbalka dugsiga. Intaasi horteeda tani way dhacday. Waxaan codsanayaa hadda in nila fasaxo kadibna waxaa fadhiisani doona guddiga wixii lagu heshiiyo. Waxaan la soo xiriiri doonaa waalidiinta oo idin sheegi doonaan waqtiga aad soo noqonaysaan. Waad mahadsantihiin. Communicate to your parents when you will be coming back. So thank you very much. Namwende salama. Now prepare our items. Wewe kama una sanduku yako, una mattress yako, markan noo diyaariya alaabteena la imaada sanduuqyaashiina iyo joodariyaashiina. Waayo waa in meel fiican la dhigaa. Waxaad dhigataan joodariyaashiina iyo sanduuqyadiina fasalada aad xalay seexateen. Kormeera ayaan sameeyni doonaa, waana xaqiiqsani doonaa fasalahaas in la xiro si alaabta ay u nabad gasho. Intaa kadib waad fasaxantihiin. Na kuhakikisha kwamba vyombo vyenu viko salama. Tulete simu nyumbani, mnaruhusiwa kujiandaa kuondoka. Asanteni sana. Si kastoo ay ahaato ma jirto khasaaro nafeed oo ka dhalatay marka laga reebo agabkii oo ku gubtay goobtaasi ay carruurta ku jiifanayeen. Carruurta ayaa loo kala diray guryahooda sifa loo ogaado sababta keentay xaaladani. Wadanka Kenya ayaa baryahani waxaa ka jira inay gubanayaan iskuulada iyadoo aan la ogeyn sababta dhabto ka dambaysa. Samsam Cabdikariin, Universal TV, Tana River County.